بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وحين كسو جرني سورة البقرة آيات أفر فرتنات أين كقادم إن شاء الله تعالى. إلهي وحده سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. aayadihii hore ee ka soo hadlayay reer bani israa'iil ama ilmo yacquub nebi yacquub tafiirtiisa ayay weli aayadahani ka hadlayaan. ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala ata'muruuna annaasa dadkama waxaad amraysaan bilbiri iimaanka iyo inay nebi maxamed rumeeyaan wa tansawna anfusakum idinkuna naftiinnii iyo nafihiinnii ma samaynaysaan oo ma rumaynaysaan nebi maxamed calayhi salaam wa antum idinkoo tatluuna akhrinaya alkitaaba kitaabkana akhrinaya waa towraadda idinkoo weliba og in kitaabka towraad nebi maxamed lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo nebinimadiisa ayaad haddana diidan tihiin oo aad aydaan rumayneyn weliba markaasaad dadkiina amraysaa ood leedihiin rumeeya. marka waxa la yidhaha aayaddu waxay ku soo degtay reer bani israa'iil waxay deganaayeen magaalada madiina yahuuddu marka waxay lahaayeen dad xidid iyo xigta ay yihiin iyo qaar ay naaska wada nuugeen oo muslimiin ah. marka waxay ku odhan jireen kuwaas uthbutuu calaa diini muxamed, diinta nebi maxamed ku sugnaada ha ka tegina qaata, saasay ku odhan jireen. dadka kalena waxay ku odhan jireen diinta ninkani wado rumeeya, laakiin iyagu may rumayn jirin waanay ogyihiin in diinta maxamed ay ahayd xaq. markaa ilaahay uu canaananaya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo canaananaya warma dadkaad wanaagga amraysaan iyo iimaanka wa tansawna anfusakum idinkiina ma rumaynaysaan oo naftiinni waad ka tagteen wa antum idinkoo weliba tatluuna akhrinaya alkitaaba kitaabkaasi waxa weeye waa towraadda, idinkoo towraad akhrinaya afalaa tacqiluun ayuu ilaahay yihi subxaana wa tacaala meedaan fikirayn caqligii meed. wastaciinuu waxaad kaalmaysataan bisabri sabirka adkaysiga, naftiina u diida waxay rabto waxa aanay rabinna ku qasba, labadaba ka adkaysta, macaasida ka adkaysta, wanaagga iyo khayrka iyo iimaankana ku adkaysta oo ku dhabar adayga. culimmadu waxay yidhaahdeen waa sabir waxa laga wadaa soonka. wastaciinu waxaad kaalmaysataan bisabri soonka wasalaati iyo salaada. aayaddan culimmadu waxay idhaahdeen isla yahuuddun bay la hadlaysaa, culimmada qaarkood qaarna waxay dhahdeen waa si guudo muslimiinta la hadlaysaa. markaa culimmada yidha yahuudday la hadlaysaa waxay idhahdeen ilahay wuxuu leeya yahuudda haddaad rabtaan inaad rasuulka aad rumaysaan bal sooma horta oo sabra, salaadana bal tukada, labadaasna idinku hagi doona iimaanka dhabta. ama nebiga markaad rumaysaan ka bacdi soonka iyo salaada kaalmaysta. wa innahaa salaadu ama soonka iyo salaaduba la kabiiratun way ku adag yihiin dadka inay sameeyaan, way culus yihiin ilaa cala alkhaashiciin marka laga reebo kuwa khushuuca ee ilaahay subxaana wa tacaala yaqiinsan ee salaada ku tukada khushuucda, kuwa salaadu kuma adka, laakiin kuwa iska foorfooransada way ku adagta. waanad ka garanaysaa inay isa soo dhibayaan ama dadka isa soo raacinayaan. waxaad arkaysaa dad badan oo muslimiin oo kule waajibkii unbaan iska soo riday waa kuwa ay ku adag tahay ilaa cala alkhaashiciin. laakiin dadka khushuucsan waa dadkaa safka hore imanaya, fadhi ku dirarka ka soo kacaya 10 daqiiqo ka hor, soo weysaysanaya, usoo diyaargaroobaya, waa dadkaa dadka khaashiciinta. dadkan kale iyagoo ordaya soo gelaya salaada waa dadkay ku adagtay ku culusta. ilaahay baan ka baryana inuu inoo fududeeyo salaada. aladiina waa kuwa dadka khushuucsan yadunnuuna aaminsan yaqiinsan annahum iyagu mulaaquu rabbihim inay ilaahay la kulmi doonaan maalinta yowma alqiyaamaha ayay yaqiinsan yihiin oy aaminsan yihiin dadka salaada ka khushuuca. wa annahum iyagu ilayhi xagga ilaahay eebe
raajicuuna ayaa loo celin doonaa oo xisaabin doonaa wanaaggii iyo sabirkii iyo salaadii iyo khushuucdiina abaalkeeda waxa u gudi doona ilaahay subxaanahu watacaala marka xaggiisa loo celiyo yaa bani israa'iila ilma yacquubow udkuruu xusa nicmatii allatii nimcadii ancamtu calaykum aan idinku galadaystay nimcooyinkaan idinku galadaystay xusa buu ilaahayga oo xasuusta wa annii anigu fadaltukum waxaan idinka ficinaysiiyey oon idinka fadilay cala alcaalamiin caalamkii aad awoyaashiin ku noolaayeen waan idinka fadilay oo xilligii hore reer bani israa'iil ayuunbay nebiyadu ka soo bixi jireen marka ilaah wuxuu leeyahy waana awoyaashiin iyo asalkiinu way ka fadli badnaayeen dadkay la noolaayeen waktigooda iyo casrigooda ilaahay baa ka fadilay oo risaalada kusoo dejiyey marka wuxuu leeyahy waxaad haysataan sharaftaas iyo nasabkaas aad ku abtirsanaysaan ee ambiyada ah ayaad haysataane ilaahay subxaanahu watacaala nimcooyinku idinku galadaystay u mahadnaqa oo xasuusta wataquu usii diyaargarooba yowman maalin waa maalinta yowmalqiyaamaha laa tajzii aanay nafna u abaalgudi doonin nafsun nafna aanay ka celin doonin can nafsin nafta kale shay an cadaabka wax ka mid a aanay ka qabanayn ama aanay wax u tarayn laa tajzii nafsun nafna aanay wax u taraynin can nafsin nafta kale shay-an waxba aanay u qabanayn ama aanay u abaalgudi karin haddii si kasta ay adduunka wanaag kuugu soo samaysay maalinta yowmalqiyaamaha qofkii wanaagga kuu sameeyey cadaabka dee kaagama celin karo wanaaggii iyo abaalkaad u haysay walaa yuqbalu minhaa nafna lagama aqbali doono buu ilaahay yihi shafaacatun erge inay ilaahay uga ergeydo oo ilaahay subxaana watacaala ay ka codsato inay hebel ama heblaayo ee cadaabka uu ka dhaafo ergey ma shaqeeyo ergeygu waa ka ilaahay ogolaaday dadka muuminiinta uu siiyey kuwaasunbaa ergey kale ma jiro walaa yuukhadu minhaa cadlun ilahay wuxu uhi subxaana watacaala ma jiro meel nafna laga aqbali maayo in maaragtay cadaabka laga leexiyo nafna laga aqbali maayo culummadu tafaasiir badan baa jira waxaa kaloo lagu fasiray madax furasho walaa yuqbalu minhaa nafna lagama aqbali doono cadlun madax furasho inuu isku madax furto ama qof kaloo leana cadaabka ka bedelayo oo isku nidaabinayo ma jirto ma shaqeynayso naf wali waxay kasbatay ayuunba abaalkeeda helaysa walaa yuukhadu minhaa nafna lagama aqbali doono cadlun madax furasho hanti iyo waxay doonto walaa hum yunsaruun cid u hiilinaysaana ma jirto cid allaalihi cid usoo gurmanaysaana ma jirto oo cadaabka ka badbaadinaysa waid najaynaakum ilma yacquubow ama reer yacquubow reer bani israa'iil xusa oo xasuusta najaynaakum markii aan idinka badbaadinay min aali fircawn ciidankiisii iyo tolkiisii markii aan idinka badbaadinay xasuusta oo ilaahay ugu mahadnaqa yasumuunakum fircoon iyo ciidankiisu waxay idin dhadhansiin jireen suu'a alcadaab cadaabka iyo ciqaabka ka ugu daran ee ugu xun ayay idin ciqaabi jireen yudabixuuna waxay birayn jireen abnaa'akum wiilashiina ayay birayn jireen fircoon wuxuu birayn jiray u qali jiray marka ilmuhu sidaa usoo dhashay hadduu wiil yahay waayo waxaa la yidhi qolo ka mida faaliyaashiisa ayaa u sheegay reer bani israa'iil inuu kasoo bixi doono wiil noqon doona ninka burburiya ee baabiiya boqortooyadiisa isagoo taa ka cabsanaya ayuu yidhi wiil kastoo dhasha ha lasoo basaaso marka la ogaadana hala biray wayastaxyuuna nisaa'akum gabdhihiinana uurka ayay kasoo ridi jireen buu yidhi ilaahay subxaana watacaala kuwa uurka leh ama way kufsan jireen ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala wa fii dalikum ciqaabkaas uu fircoon iyo ciidankiisu idi ciqaabi jireen ama badbaadada ilaahay idinka badbaadiyey fircoon iyo ciidankiisa balaa-un waa imtixaan ama waa nimco ilaahay idinku galadaystay min rabbikum oo xagga rabbigiin ka timi oo cadiimun aada u weyn waa imtixaan aada u weyn waxaa laydinku imtixaamayaa bal inaad ilaahay u mahadnaqdaan subxaana watacaala maadaama ilaahay waxaasoo dhibaato idinka soo badbaadiyey
يوحى عقابه وإذ فرقنا بكم البحر وحل حسوستان والحستان وذي وقم هم نقدان وقتي فرقنا بكم البحر بضع عن ذيك لفرقنا بضع ضركتين أيو إلهي ودك الحسنية مركي تعسنيين فرعون يعيدن كيسو تعسنيين نبي موسى عليه السلام يخير بني إسرائيل أي إلهي سبحانه وتعالى بدو بني وأي بدي بسوقبته waxa ka dambeeyana waa fircoon iyo ciidankiisi oo aan awood ay ugu babacdigan iskaga celiyaan aan haynin ilaahay wuxuu sameeyay jid badii baa la kala teexay faraqna bikum al-bahra badii baa midii jeexnay wadaydii ka sameeyay faanjaynaakum waan idinka badbaadinay fircoon iyo ciidankiisi waa qaraqna waxaanu halaagnay oonu hafinay aala fircoon iyo ciidankiisi iyo tolkiisi gaalada ahaana halkaasaan ku hafinay buu ilaahay badda dhexdeeda labadii dhinac biyaha ahaa ayaa ilaahay dib iskugu soo celiyay markaasay halkaa ku hafteen wa antum tanzuruun idinkoo weliba arkaya oo fiirinaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu hafiyey uu qarqiyey fircoon iyo aalkiisa waa nimco ilaahay uu ku galadaystay inuu badbaadiyey reer bani israa'iil وإذ وحى حفتان سيدوك ليلة وحده سبحانه وتعالى وقتك وعدنا موسى نبي موسى نقلب لنا 40 ليلة أفرتن هبين إنو يمادو مركي وحي يقول كقاي أيا وحى ليلة موسى عليه السلام وحي يجيبها كقاي إلهي سبحانه وتعالى مركي توراة دي كقاي أيا إلهي أفرتن مع الموت كبعدي وحل أمري إنه كتغو reer bani israa'iil inuu ka tago oo macnaha uu qabto buurtii xaggaas isagoo ilaahay subxaanahu watacaala la hadlaya oo ilaahay u soo waxyoonaya marka intii uu ka maqanaa ayay shirki iyo gaalnimo sameeyeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waid waacadnaa muusa nebi muuse waxaanu kula balannay 40 laylatan afartan habeen in tooraadii ka goobay iyo waxyiga uu baxay afartan habeen buu ka maqanaa ثم اتخذتم العجل كبعدي وحلت مادين إن سميستان أو إله كدغتان دبي العجل الدبي من بعده موسى مركو كتغي مغالدي أي الدبي كدغتين إله نيلورن تري سامري نيكاسا كينه فكرada gaalnimada ninkaasa ka dambeeyay markii muuse ka tagay meesha ayuu dibi u keenay dibigii buu ku yidhi waa kan ilaahiin ثم اتخذتم العجل كبعد الدبي بعد كدغتين من بعده موسى كبعد إله وأنتم يذكر ظالمون ظالمين باتين إلهي سبحانه وتعالى حقي سي ودو سيسين حدكي الذي دقوا كتلودين ثم عفونا عنكم إلهي وحده لكن عصاهاته ثم كبعد عفونا عنكم ونسككين عفيني ونسان حنك إلهي توبضي بكاقبلا ويسكعفي من بعد ذلك ولي بيدكو الدنبك انت عليك سميه أي إلهي دعفي لعلكم تشكرون بنينا دي الله سبحانه وتعالى ومهن قطعا وضد توبتك إذا لماذا ودول أنس بدله مركز تو إلهي عفيه مركز تو الدنبي يقف وين قلان هذا نهار كلهم بكم يصير إلهي وحده وإذ وحى الحصوصتان والحفتان آتينا مركز مصينين موسى نبي موسى نكسو دجنا الكتاب التوراة والفرقان وحق يبادل كالعدانس وغني معها يعني لبا كتاب إلا سي كتاب هي فرقان علماء وحده فرقان والتفسير توراة بو سي عدينيا فرقان بوها توراة سيدا قرآن كلو يحي فرقان وحو كلا عدينيا حق يبادل لعلكم تهتدون بلين الحق كوهم منتان وتيتك توصنا فرعدان أي إلهي موسى وسو دجي توراة وحق يبادل كالعدينس وإذ قال وحد حفتان مركي وكويل نبي موسى وكويل لقومه غير تلكي يا قوم تلكي إنكم إذكو ظلمتم والظلمذين أنفسكم نفتين والظلمذين وهي الدنبي قاد قشين والدنبي ذكر يدكو صلى الله عليه عقاب كيس
biitiqaadikum markaad samaysateen alcijla dibiga markaad ka dhigateen ilaah ayaad naftiina dulmideen sidaasuu muuse ku yidhi isagoo tolkiisii la talinaya oo dacwadda iyo xaqa gaadhsiinaya marka tolkaaga dee markaad diin iyo xaqaad kala hadlayso haddii aad tidhaahdo tolkaygiiyo waa beerlaxoosi moogta waxa laga yaaba inay kuugu soo istaagaan marka muuse iyo rusushu badankoodu sidaasay isticmaali jireen yaa qowmi ayay odhan jireen muuse calayhi salaam wuxuu yihi fatuubuu u toobadkeena ilaa baari'ikum ilaahiinii u toobadkeena idi abuuray ee idi uumay idinkoon jiray ilaa baari'ikum war ilaahiinii usoo laabta sida qure toobadda laydinkaga aqbalayaana waxay tahi ayuu muuse ku yidhi qownkiisii waa inaad dishaan qofkii mushriga noqday ee daalimka ee mujrimka ahaa waxaa dilaya qofkii beriga ahaa ee muuminka ahaa een isagu dembiga intaa le ka qayb gelin ayaa dilaya sidaasaa lagu xukumay towbadoodii taasaa lagu xidhay markaa wuxuu yihi muuse faqtuluu dila anfusakum naftiina dila macnaha qofka dembiilaha waxa dilaya qofka bilaa dembigaa dalikum khayrun lakum inaad sidaa u toobad keentaan ayaa idii wanaagsan oo idii khayr badan cinda baari'ikum ilaahiinii idi abuuray agtiisa waxa idii khayr badan inaad sidaa samaysaan oo qaabkaad u toobad keentaan marka waxaa dhacday ilaahay subxaana wa tacaala si ugu naxariisto daruur baa la keenay habeenkii dhacaysay arrintu 70 ayaa la dilay 70,000 cafwan 70,000 ayaa la dilay oo dembiilayaa lahaa 70,000 waxaa dilay 70,000 oo kale oo iyagu bilaa dembiya ninba nin baa lagu beegay ilaahay markaa uu naxariisto daruur buu keenay daruur madow si aan u arag de qofkan dilay iyo kan la dilayaaba aanay isku arag waa naxariis 70,000 todobaatanka fataaba calaykum ilaahay uu idinka toobada qabaday إنه إلهي سبحانه وتعالى هو التواب والله توبض قبله الرحيم من حريص قبله فتاب عليكم والله توبض قبله انت يا الذين كهر أيا إلهي توبض قبله انت يا الذين كهر ساسع علماء الكفر وإذ قلتم مع الحصوصتان أو الحصتان مركي ابتلاهدين وغير بني إسرائيل وإذ قلتم واحد حصوصتان مركب كتل عهدين يا موسى نبي موسى لن نؤمن لك كرمين من موسى كمر مينينا شرط بكحرة واحد هذا كمر مينينا حتى نرى الله إلا أن إلهي أعرقنا جهرة سعد ومن دهو قطعني إلهي أنا كمر مينينا فنمك كور waliba iyadoo haddana ilaahay subxaana wa tacaala toobadii laga aqbalay oo la cafiyey ayaa muuse wuxuu yidhi waxaan rabaa inaynu baxno oonu ilaahay u toobad keenno markaasaa waxay idhahdeen anigu kuma rumaynayno ilaa ilaahay aanu aragno si cad shardigaasay ku xidhan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala u ciqaabay waayo ilaahay shardi toobadiisa laguma xidho rasuulka haddaad rumaynaysana inaad rasuulka rumayso shardi laguma xidhan ilaahay wuu ciqaabay fa akhadatkum saaciqa ilaahay wuxuu ku halaagay qaylo culimmada qaarna waxay idhaahdeen waxa lagu halaagay dab ayaa lagu halaagay dabeelo wada wa antum idinkoo tanduruuna arkaya ayaa laydi ciqaabay waa kuwii dembiga galay dhammaantoodna waa qaar ka mida kuwa sidan yidhi kuwan yidhay kuma rumaynayno ilaa ilaahay aanu aragno si cad waa qayb ka mid a markaa qaybtii sidaa tiray dembiilayaasha ahayd ilaahay subxaana wa tacaala wuu ciqaabay waxaana lagu ciqaabay saaciqa dabeyl baa lagu ciqaabay ama dhawaaq ama qaylo ama dabeylo dab wata intaba waa la odhan karaa ayaa lagu ciqaabay weliba naftu kamay bixin iyagoo arkaya ayay maaragtay naftu ka baxday si xun bay u dhintay wa antum tanduruun idinkoo arkaya ayaad olasheen ثم بعثناكم مركي عبدمتين كبعد حدنا إلهي لدبي دي سونولي
min bacdi mawtikum markaad dhimateen kadib ayaa haddana dib naftii laydinku soo celiya waa nimco ilaahay uu ku nimcaystay waa loo nimceeyey eeg nebi muuse wuu kaxeeyey nimankii markii la kaxeeyey ee uu yidhi waynu toobad keenaynaa oo la geeyey buurtii meel u dhow ayay diideen markaasay yidhaha waa inaanu ilaahay indhaha ka qaadin ilaahay subxaana watacaala waa kan halaagay ee ciqaabay markii naftii laga qaaday dabeelahaas iyo dabkaa loo soo dirayna haddana ilaahay naftiidu dib ugu soo celiyey uma bacasnaakum dib baanu idiin soo celin min bacdi mawtikum markaad dhimateen kadib lacallakum tashkuruun been inaad ilaahay u mahadnaqdaan waa loo siita dheeraynaya halkii iyagoo jooga ayaa waxa lagu xukumay aayadahan ma sii fasirayaan laakiin aayado kalaa fasiraya ila qur-aanku isfasiraayo waxa lagu xukumay 40 sano la yidhaahdo tii dawakhaad wareer meeshaasay wareysanaayeen buurtaas siinay iyo agagaarka ardushaan meel ka mid a ariixa magaalo ariixa la yidhaha ay culamada qaar ku sheegaan oo jordan badda meydkee dadda dhimatay u dhow meelahaasay joogeen 40 sano tii haba la geliyay oo wareer ah markii la soo saaray kabacdi ee ilaahay naftii dib ugu soo celiyay ilaahay uu naxariistay wuxuu sameeyey ilaahay daruur buu soo diray ilaa cadceeddii iyo saxarihii iyo wixii baa qabtay way wareereen markaasaa ilaahay wuxuu uhi wadallalna calaykum waxaanu dushiina keennay alghamaama daruuro ayaanu dushiina keennay idinkoo tiihii ku jira ilaahay wuxuu ka hadlayaa nimcooyinku ugu galadaystay wa anzalnaa calaykum waxaanu idinku soo dejinay weliba almanna macaan xalwad ama malab ama xabag macaan oo sida roobka usoo da'aysa dhirta dushooda intaaba waa lagu fasiray waa wax macaan almanna marka culimada qaar waxay waa xabagta asabqa alcarabi oo macaan qaar waxay yidhaahdeen waa malab macaan qaar waxay yidhaahdeen sharaab ayuu ahaa oo dhirta ku daadanaya qaarba waxbay ku sheegeen marka waxaa iska tidhaahdaa un waa dessert wax macaan weeye almanna oo macaan buu ilaahay soo dejiyey oo sanada looga soo dejiyey oo dhirta ku dul daadanaya oo cabayaan ama cunayaan wasalwa iyo hilib bislaaday oo ilaahay subxaana watacaala sanada uga keenay culimada qaar waxay dhaha wasalwa waa shimbiro shimbirahaas oo cirka ka imanaya oo duulaya oo ciiddaa ka badan ayaa ilaahay usoo dejiyey markaasaa intay soo qaqabsadaan ayay biraysan jireen ay cuni jireen ay dubtaan markaa salwa waa shimbir caana oo xamaamka ka yar hilibkiisuna aada u badan yahay oo butuca hilib badan oo baalashu isu yaryar yihiin oo xamaamka ka yar wey marka wuu joogaa meel kasta africa iyo yurub uu jooga waa shimbir yar adigu xamaamka wega hadda ma garanaya soomaaliga waxa lagu idhaa si taas digirkana uu ka yaray digirku weyn adoo digirkoo kale kuluu ilaahay wuxuu ihi waxaad cuntaan min tayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idi arsaaqnay aanu idi siinay cuna buu ilaahay ihi tayibaadka wanaagsan macaankaas iyo digirinkaas iyo digaagaas faraha badana idi dulduulaya cuna oo ka dherga maa rasaqnaakum idinku arsaaqnay wamaa dalamuuna ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala anagu namay dulmin iyagu waxay u haystaan inay anaga waxna soo gaarsiiyeen laakiin ilaahay wuxuu ihi walaakin hase ahaatee kaanuu anfusahum iyagaa naftoodii dulminaya oo duleynaya mar kasta nimcada ilaahay siiyo ayay dafirayaan ay ku gaaloobayaan waid qulnaa waxaad xustaanaad xasuusataan markii aanu idinku nidhi idkhuluu gala haadihi alqarya tuuladan gala magaaladaas gala fakuluu minhaa magaalada waxaad ka cuntaan xaysu shi'tum halkaad doontaan ka cuna waa magaalo barwaaqo ah markaa ilaahay wuxuu waxaad xasuusataan markaanu idinku nidhi idkhuluu gala haadihi alqarya tuuladan barwaaqadaa gala fakuluu minhaa ka cuna xaysu shi'tum meeshaad doontaan raqadan risqigaa ilaahay ee bilaa xadka ah raqadan bilaa xad cid idinku xisaabinaysaa ma jirto cid idinku kaantaroolaysaa ma jirto sidaad doontaan cuna raqadan ka dherga wadkhuluu gala albaaba albaabkaas iriddaas ka gala buu ilaahay yidhi magaaladu waxay lahayd deer ku wareegsan waxaa jooga niman la ydhaha aljabaabira oo maamula oo xoog waaweyn markaa ilaahay wuxuu yidhi magaaladaa gala
albaabkaasna ka gala markaad gelaysaana sujadan idinkoo sujuudsan sujuudani maaha tii fooda la dhigayay idinkoo rukuucsan weeye oo foorarsanaya oo ilaahay subxaana watacaala isku duleynaya gala aayadan culammadu waxay idhaahdeen waa markii la rabay inay toobad keenaan marka waxaa la yidhi magaaladaasaad ku toobad keenaysaan waa tuulada barwaaqada ah waad gelaysaan albaabkaasaad ka gelaysaan markaad gelaysaanna waa inaad foorarsataan idinkoo ilaahay isku hoos dhigaya waquuluu waxaad tidhaahdaan markaad albaabka ka gelaysaan xitatun ilaahu dunuubtii iyo gafadkaanu galnay naga dhaaf weeye macnaheedu xitatun xadi cannaa khataayaana ilaah waxaa naga dhaaftaa gafadkaygi kelmaddaa ku dhawaaqa naqfir lakum waan idiin dambi dhaafaynaa ayuu ilahay yihi subxaana watacaala waan idiin dambi dhaafayaa khataayaakum gafadkaad gasheen laakiin albaabkaa ka gala rukuuca waxaana tidhaahdaan xitatun ilaah noo dambi dhaaf naqfir lakum khataayaakum ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi dunuubtii waan idinka dhaafaya wasanaziidu lmuxsiniin kuwa samafalka sameeyana ajarka waan u kordhinaya waan u labalaabayaa buu ilahay yihi subxaana watacaala kuwa muxsiniinta ee wanaagga sameeya sidaasaa la isku ogaa laakiin waxaa dhacday qaar iyaga ka mid ah ayaa kelmaddii bedelay edabdarradii bay weli sii wadaan ilahay wuxuu uhi fabadela aladiina kuwii way bedeleen dalamuu daalimiinta ahaa qowlan hadalkii lagu yidhi dhaha ayay bedeleen gayra aladii qiila lahum kii lagu yidhi mida aan ahayn ayay ku bedeleen xitatun baa lagu yidhi soo maaha waxay idhahdeen xantatun waxaanu rabnaa qamadi intay foorarsadaa lagu yidhi way guurguurteen iyagoo guurguuranaya ayay waxay idhahdeen xandatun iyagoo waa jeestes qamadi baan rabnaa qamadi marka kelmaddii bay bedeleen buu ilaahay yidhi fabadela aladiina dalamuu kuwii daalimiintaha way bedeleen qowlan hadalkii ayay bedeleen hadalkii intay bedeleen gayra aladii qiila lahum hadalkii lagu yidhi xitatun dhaha ayay xandatun ka dhigeen way bedeleen buu ilahay yidhi subxaana watacaala faanzalnaa kuwa waxaanu ku soo dejinay cala aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ee hadalka bedelay rijzan cadaab ayaa lagu soo dejiyey min asamaa samada cadaab lagaga keenay iyagana cadaab baa lagu soo dejiyey bimaa kaanuu yafsuquun waa fisqigay sameeyeen iyo macsiday sameeyeen sababteeda ayaa lagu ciqaabay bimaa kaanuu yafsuquun bisababi fisqihim ilaahay marna cidna kama gardarna marna gardarro ma sameeyo dadku iyagunbaa gardarrada sameeya bal nimankaa loo nimceeyey ee haddana hadalkii bedelaya halkan waxay ka fahmaynaa cashar ban ka qaadanaa lama bedelo hadallada qofku hadalku yidhi hadal aan ahayn lama bedelo hadalka ilaahay iyo axaadiistana sidaad adigu rabta ha u fasiranino ha bedeli dad waxaa jira iyagu u fasirta siday doonayaan ama wadaadda iyagu u fasirta waxaasoo dhan way soo hoosgelayaan hadalka ilaahay haddaad bedesho wadkuruu waxaad xasuusataan id istasqaa muusa markii nebi muuse roobdoob uu dalbay liqowmihi reertolkiibuu roobdoon u sameeyey markay abaarihii ku habsadeen waid istasqaa waxaad xasuusataan istasqaa muusa nebi muuse markuu roobdoonta u sameeyey liqowmihi tolkiisii muuminiintii ama reer bani israa'iil badhe faqulnaa waxaanu ku nidhi muuse idrib ku garaac bicasaaka ushaada waxaad ku dhufataa alxajara dhagaxa ku dhufo waa ushiisii uu sidan jiray mucjisada ahayd ayaa waxaa lagu yidhi dhagaxa ku dhufo fanfajarat minhu culimmada qaar waxay idhahaan dhagaxaasi waa dhagixii kala cararay dharka berigii uu maaragtay uu meedhanayay dhagixii wey allahu aclam fanfajarat minhu dhagixii waxaa kasoo burqamay 12 caynan 12 ilood ayaa kasoo burqaday dhagixii iyaguna waxay ahaayeen 12 sibdi bay ahaayeen jilib ama kooxood ayay ahaayeen 12 kooxood bay u kala qaysaneen ama qabiil ama waxa doonaysa dhe ama isku bah ama isku beel 12kii mid walba maxay kusoo hagaagaysaa ilda mid walba ilba kusoo hagaagaysa fanfajarat minhu dhagixii waxaa kasoo burqaday 12 cayna 12 ilood abaartii sidii bay kaga baxeen qad calima kullu unaasin qolo kastaaba way garanayaan buu ilaahay yidhi mashrabahum ishay ka cabayaan way garanayaan qolo kasta
kuluu ilaahay wuxuu yihi cuna washrabuu cabba min risqi illaah nimcada ilaahay cuna u cabba waa taase risqiga ilaahay walaa tacfaw fi lardi dhulka ilaahay ha ku samaynina kibir iyo qooq mufsidiin dhulka ilaahay ha fasahaadinina walaa tacfaw fi lard dhulka ilaahay mufsidiin ha fasahaadinina dib ha ugu laabanina walaa tacfaw walaa tarjicuu fi lardi mufsidiin idinka dhulka fasahaadinaya waid qultum waxaad tidhaahdeen waxaad dib u xasuusataan markii aad ku tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira anagu ma adkaysan karno calaa طacaamin waaxid nooc qura cuntada waanu ka daalnay ayay haddana yidhaahdeen cuntada noocan keliya shimbirahan iyo macaankan labada nooc waan ka daalnay yidhaahdeen lan nasbira calaa طacaamin waaxid cunto qura anigu ma adkaysan karno fadcu lanaa bal noo bari rabbaka rabbigaa noo bari yukhrij lanaa ha noo soo saaro mimaa tunbitu alardu dhulku waxyaabaha ka soo baxa ee qarsanayso dhulku qarsanayo ha noo soo saaro dhulku ayay yidhaahdeen mimaa tunbitu alardu dhulku wuxuu qarinayo ha noo soo saaro bergaa hore dhulku iyaga waxba muusa saarta u qabaadna markaase waxay idhaahdeen fadcu lanaa rabbak rabbigaa noo bari yukhrij lanaa ha noo soo saaro mimaa tunbitu alardu waxa dhulka ku qarsan min baqlihaa dhirta yaryar kaabashka kamsarada ayaa la yidhaha baql waa maa laa saaqa lahu waa dhirta aan jirida lahayn ee gaagaaban min baqlihaa kamsaradaas iyo kaabashkaas iyo maaragtay ha noo soo baxaan wa qisaa'ihaa waxay idhaahdeen khudrawadaha khudaarta ayaanu rabnaa culummada badankooga laakiin qisaa'ihaa waxay ku fasireen bahalkan la yidhaha khiyaarka waxaa la yidhaha somalqanta qabtaarka kaasay ku fasireen وقصايا علماء قرن حلو خضرة وظهرنا وخضارتنا سيدا شيخنا خضارتنا نقول وفومها علماء قرن حلو وطونتا هي طونتا وفومها هي طونتا علماء قرن حلو وفومها وقمديها ميرهودا هي قمديل لم يضودا أما قمديها وفومها أما طون كابون فدي وقصائها نوع حميرة وقنجارك وحلا ميرا بقلها نوع ودرتها يرجع قاعدا سكن سرد يكابش هو صاحب نبيله وعدسها مصر كانوا حبنا مصر كان ترانسا وبصالها يبصش لبدا نوع عادي مصر كي يبصشي أيام نبيله وحلا أريد دوني قال إلى وحلا تستبدلون ورنا سيدي كان قتل واحد قلت إن كل بدلتان الذي هو أدنى كنديتا بصشان يو تماددان يو خيار كان يو أياد ربطانين كل بدلتان بالذي هو خير ككون أكسنة كفي عن شنبرحاس وذهيلك يمعان كاس أياد ربطانين كل بدلتان بيلا هيري بصليو يمسريو مارت كابشيو كارتو حاس كل بدلتان سيدي كان قتل بيلا هيري سبحانه وتعالى ميدان فكرين اهددوا مصر هذا سيدا نقطة إلى هيدا بالمصر تجا دجا مصر مجالات مصر اهددوا مصر تجا بالله هل كاسات كل بيران إنسان والله دري هذانا كل بعدين على وضع قاتنا اهددوا مصر قبت إلى هيدا فإن لكم ما سألتم مثل إلى هذا ويديستين وهذا لسان فصشي وضربت عليهم الذلة إلى وحدة ذكر حلقة صار الدولي نمو ولا الدولي وقتي النبي قال حلقة قاعد يجري جسم lagu ilaaliyo amaankooda lagu sugo cashuur ayaa laga qaadi jiray وضربت عليهم الذلة ولا الدلية والمسكنة هي فقر هي كذا laga saaray ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo miskiinimo iyo dulinimo وباءوا waxay kasbadeen بغضب من الله على إلهي بكسبدين ilaahay subhanahu wa ta'ala على إلهي ba ku dhacday والمسكنة culimada qaar waxa lagu fasiray waa raadka faqriga يدل النمذا يورورك يفكرك وضربت عليهم محب لقصة الذلة دل النمو والمسكنة يفقري تلك ورور اسكبن وباءوا وحي كسبادين بغضب من الله على إله بكسبادين ذلك سببتنا وحي تعالى لأنهم يقول كانوا وحي هاين يكفرون قال كقالوا وبآيات الله هاي إلهي ويقتلون وحي اللي ينترين النبيين إله ويدلي ترين بغير الحق قربره أي كده بترين يبقى حقه السنة عذرداء أي نبي أنا مدح كتير ترين ذلك
sababtay waxa uu sameeyeen waxa weeye sababta loo ciqaabay bimaa casaw waa dunuubtay kasbadeen wa kaanuu yactaduun mar walba xaqa way ka gudbi jireen xadgudub bay samayn jireen buu ilaahay yidhi wa kaanuu waxay yactaduuna qaar xadgudub sameeya mar walba sidaasaa lagu ciqaabay ilaahaynu ka magangala wuxuu samayn jiray اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين وبالله تعالى التوفيق